بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان umada Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan ugu hambalyeeynaa doorashada maanta ka dhacday Muqdisho oo ahayd mid kaliya laaba waxaan haysan warqad iyo qalin aan ku xisaabinayay codadka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wallahi runtii isma ahayn Maxamed Cabdullaahi Farmaajo codad xildhibaaneed buu soo baxaya laakiin waa islaa wuxuu ku soo baxaya cod shacab alxamdulillaah rabbil caalamiin halkan waxaan ka cadaynay inaanay Itoobiya halkan ka talin gabdho waxaan u sheegayaa ma caawa kugu daadsan tahay meesha iska qaad sidoo kale umada Soomaaliyeed waxaa ugu sheegayaa gacan qabta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ugu mahadcelinayaa hambalyadii ugu horeysay caawa u dira weeye sidii xilka u wadaajiyay umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaaliya noolaato umada Soomaaliyeed isku timaado qalbigooda barxada Allah isku mariyo waxaan leeyahay Farmaajo afar sano iyo ka badan baan ku soo daboordeynay caawa xarig miiskaan hoos kaaga xariiqnay waa inaan waxaad noo haysay soo bandhig caawa waxa muhiim ah oo aan arkay adeer markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mikrofoonka la wareegay waxa goobta dhan yimid saraakiisha ciidamada Soomaaliya oo ah ta ugu horeysa ee uu soo tari lahaa umada Soomaaliyeed Soomaaliya guul umada Soomaaliyeed guul aan nabad barwaaqo bas saxaafadu koob ka yaa Soomane waa ku salaamayna